وين سلام صاحب يالmaan waxaanu bilaaw doonaa taxane aad u xiis badan oo magaciisu yahay Steel Shining. Taxanaha waa taxane cusub oo soo baxay maalmo ka hor. Waxaan rajaynayaa inay ka heli doontaan inta muuqaal gudagal wax ka xasuusinayna muuqaalka like sartid saaxiib naga cusub hadii aad subscribe soo channelka gambaleelkana furo. Taxanahan waxa bilaabanaya iyadoo sanadku yahay 2014 kana waa toorena taxanaha lagu magacaabay wuxuuna boorsadii soo gashtay wixii qolka yaalo oo dhan kadib waxa soo cararaya banaankan waxaa jooga walaalkiisa lugta ayuu ku dhaawacnaa waxaana lagu keenay gaariga isbitaalka walaalkiisa ma awood inuu socdo gaariga soo dago taayna waxa ku dhahay walaalkiisa kaala duudkayga soo fuul aan kugu qaaday kadib duudka ayuu ku soo qaadaya kadib waxay soo raacayaan tareenka labadoodna waxay ku laabanayeen tuulada kadib bas ay soo raacayaan baskana tuulada ayuu keenaya markay baska soo dagaan waxa busteejisku sii sugayeen ayadiisii awoowahooda kadib gaariga awoowahooda ay soo raacayaan taay walaalkiisa waxa ku dhahaya baartaan lugtaada dhaawac ma kan arkay waxay la taasana dugsiyeedkan cusub inaad aadi karin iskuulka walaalkiisa waxa ku dhahaya dhib ma lahan waan aadi karaa iskuulka anigoo dhaawacan aniga darteeda inta u soo laabatay aniga cunug yar ma ihi waa isdabiri karaa kadib waxa uu imaanaya maamulaha iskuulka tuulada sida asaga iyo walaalkiisa ugu soo badashaan iskuulkan cusub maamulahan waxa ku dhahaya ma lagu soo diray waraaqadii bedelka iyo natiijooyinka iskuulkeygii hore maamulahan taay waxa ku dhahaya waa la soo diray waraaqadaha markuu arko waxa uu sheegaya in markii labaad ay tahay codsanaysid bedelka waxa toos inta iska imaaweysay taayna waxa ku dhahaya eedadeeda ay ku dhahday Siyool ayaa jaamacad fiican ka helaysa maamulaha waxa ku dhahaya Siyool nolosheeda dhib badan tahay adiga dagaal ama buuq ama ku gashay le taay waxa ku dhahaya waxaas ma jiraan kaliya walaalkeyga la qabsan waayay Siyool meeshaasan cusriyad ayuu kala kulmay walaalkeyga maamulaha waxa ku dhahaya dadka saan leh waay qofka doo meelka dhaawacan yahay xataa ma kafkanayaan intan waxaas kuma arkaya ka walwalin kadibna uu istaagaya wuxuu sheegaya inuu darees cusub soo gadanin waxa jiraan darees ka tagay ardadii hore sanadka hore dhameeyay iskuulka ay soo qaado qaybta hoose aad waxaana joogto gabar lagu magacaabo ayada kaliya ayaa meeshaas wax ku barato ayada 5 sano ka hor ayaa loo soo bedelay iskuulkan taan waxay imaanaya qaybta hoose iskuulka si uu qaato dareeska iskuulka asagoo dharka qaadanaya waxay is arkayaan uuna qof kale ma atriishada taxanaheena cabaara is fiirinayaan ay asan dharka ay soo baxsanaya uuna soo baxaya uuna qolka ay iska joogto waxayna korka arkaysaa taayoo sii socdo sidoo u socdo kadib uu istaagaya barxad iskuulka asagoo madax wareer oo dhici rabo uuna ayadoo soo ordi rabto hadana waxay arkaysaa inuu xaalkiis oo fiicnaado oo sii socdo kadib inta asagoo qolkiisa joogo oo diyaarsanaya buugaagtiisa iskuulka waxa soo xasuusanaya waalidiinta markay shil galeen asagoo isbitaalka joogo isla maalintaas inuu madax wareerkaas uu ku soo bilowday maalintii xigtan waxay imaanaysaa iskuulka iyadoo socoto waxay arkaysaa taayoo marxad uu daarin weysay sidoo uu daarayna ku daal maanta dhan meesha kulaalkeeda sayid ayuu ahaa kadib dariishada ayuu soo garaacaysaa waxayna geynaysaa qolkeeda ee wax ku barato waxayna ku dhaysaa qolal kale koronto ma lahan inta kaliya loo leeyahay korontada marxad intuu isticmaali kartaa kadib marxad ay daaranayaan markaas kadib waxay bilaabayaan casharada ay diyaarsadaan inta ardayda kale iskuulka intay fasax ku maqan yihiin si casharadii dhaaf u soo muraajaceeyaan uuna wax ku dhaysaa waxina kuu sheegay ayaan rabay aniga nafteeda sikadiisa ayaan waqti ugu helay markii hore aabahayga xanuunsan ayaan daryeeli jiray anigana ma rabin waqtiga u waxaan go'aansaday inaan waxbarashadii aan sii wato jaamacadina aad qorshe iguma jiro hadana waxa laga yaabaa inaan gadaal aan iska bedelo anigu jimilihiye mooyig waxaan rabaa inaan noqdo mustaqbalka laakiin waa ogaan doonaa haddaan warkuu soo koobo aniga waxbarashada maba iigu baxdabo intan waa iska imaadaa leh kadib waxay siinaysaa baaswarka internetka iskuulka sidee war ugu waday haddana taay casharadiisa iska sii akhrisanaya haddana waxyar kadib kabtay wadata ay tuuraysaa kadib waxay ku dhahaysaa raali naqo iga fakadee kadib kabteeda ay soo qabsanaysaa meeshana iskaaga tegaysaa markay baxda taay neefka kasoo fuqayso wuxuuna dhahaa tan war badna ayada kadib miiska ayuu madax saaranaya kadib intaay casharadiisa iska sii akhrisanaya waxyar kadib way soo laabanaysaa maanta dhanna gadaashiisa ay ku soconaysaa ayadoo istaaga casharada ku akhrisanayso taay markuu arko in meeshan casharo lagu diyaarsan karin uu istaagaya qolkan uu iskaaga tegaya si madax banaanka ugu soo degsado haddana markay isku soo laabtaan waxaa la gaarayaa waqtigii qadada uuna waxay ku dhahaysaa maxaa cuni rabtaa waqtigii qadada baa la joogaayay taay asagana soo baxsanaya dhala caano ugu jirtay markuu furo fiiris dhaho inay weli u fiican tahay dhalada shiir ayaa kasoo baxayo caanahan mar hor ayuu waqtigii dhaafuuna halaabay kadib jikada ay imaanaya meeshan qada fiican ay ka helayaan kadib waxay soo xasuusanaysaa inuu asaga raadinayay darees iskuulka wayna u soo bixinaysaa darees fiican wayna siinaysaa waxayna ku dhahaysaa dareeskan wuu fiican yahay surwaalkii dabagaabkan waa jilaac asaga dhan waa u bagay xataa anaaba tay fiir markay tusto taay asaga dhan isku darsamaya wuxuuna ku dhahayaa war waxaan iga qar lafalafaa inaa ordama rabtaa kadib markay cashar diyaarintu soo dhamaato is soo raacayaan labadooda uuna waxay ku dhahaysaa beri imaanaysaa aniga meeshana mas-uul ka ahe xafiiska anaa fur oona xiro taayna waxay ku dhahayaa aniga ha igu walwalin ma ogi xataa inaa beri imaan doono iskuulka markuu sii socda waxay ku dhahayaa maxaa adig guriga u socod miya uuna waxay ku dhahaysaa habaan u socdaa aniga waxaan ku imid baaskiil kaliya adiga lagu sugay si aan kuugu sheego waqtiga baxay baska kadib baaskiilkeeda ay soo qaadanaysaa waxayna u sheegaysaa in waqti baska uu baxay in la gaaray ee soo orod taayna orod ayuu soo jabsanaya maalintii xigtay uuna iskuulka ay imaanaysaa waxaan irid qolka sii sugay taay kadib uuna ayadoo albaabka furaysa qufulka taay waxaa ku dhahayaa adiga hore ma igu aragtay dabaaldeg sanadyadii hore ee tuulada aan imaan jiray uuna waxaa ku dhahaysaa sanad walbaan ku arki jiray laakiin waxaa joojisay inaad timaado tuulada markaa ahayd fasalka 8aad marka adiga maanta imaanaya dhahday maxaa ku keenay taay waxaa ku dhahayaa casharo badan ii yeelo inaan iska akhriyaa rabaa adiga ilaa goorma taqaanaa uuna waxaa ku dhahaysaa tuulada waxaa usoo wareegsaday 5 sano ka hor marka waqtiyada samarka aa imaan jirtay ilaa waqtigaasaa ku aqaanaa ad warkaas maxaa u keentay oo u danaynaysaa inaa ogaatid hadda taayna waxaa ku dhahayaa adiga qof fiican ayaa tahay si wanaagsan aa ii soo dhaweysay sidaas darteeda horaa ii taqaanay haddaan fahmay sababtaas marka furaha meelaha meel ka dhig haddii aan ciyoob imaado aan iskaaga furo uuna waxay ku dhahaysaa taas ma dhacayso aniga iskuulkan lagaga tagay aniga lee fura oo xiraayo anigaa lee xil saaray maantana waxaa jiri doona kulaal aad u badan kadib labadooda casharadooda ay bilaabaan inay diyaarsadaan markay usoo dhammaad xiisada way is soo raacayaan taayna waxaa ku dhahayaa maanta aawo baaskiilkaada ani baaskiila soo qaatee uuna waxay ku dhahaysaa maanta baska iska raacaya ee jawnio kadib uuna baskeeda ay iska soo raacday markay dariishada fiiriso waxay arkaysaa taayoo baaskiilka tartiib u wado taayna markuu arko ayada baaskiilka xog ayuu wadaya si xaafadda uga hormaro uuna ayada ninka baska waday ayay ku dhahaysaa baska xog u wad wayna kasoo hormaraysaa markay
baska soo degto orod ayay soo jabsanaysaa tay asagana oo ka daba yimid baaskiil asagoo speed saa'id ah ku wado markuu ka hormaro oo ku guulaysan rabo hadan dib ayuu soo laabanaya si uusan uga hormarin xaafadda ayadan cabaar markay socoto ayuu ka daba imaanaya markay aragto inuu kasoo dhow yahay way ka cararaysaa waxayna imaanaysaa xariiqada ay guulaysanayso kadib labadooda waxay bilaabayaan inay isku soo dhawaadaan oo saaxiibo ay noqdaan uuna markay habeenkii guriga soo laabato waxay arkaysaa aabaheeda dad cadaan casho u sameeyey oo aad u faraxsan oo qoslaayo kadib markii subaxdii la gaaro uuna aabaheeda oo bannaanka fadhiyo waxay u keenaysaa wuxuu cabo waxayna ku dhahaysaa bahashan cab caloosha u fiican tahay aabaheed wuxuu ku dhahayaa tabardaraa ay hayso saag saa'ida uman tagay haddana okay aan ahay ee orod iskuulka aad casharadaad soo qaado uuna marka aabaheeda oo saas u dhaho waxay soo xasuusanaysaa inay furaha iskuulka inay ayada hayso wayna soo cararaysaa ayadoo roob da'aayo waxayna soo qaadanaysaa baaskiilkeeda kadib kabteeda ayaa ka dhacayso ayadoo baaskiilka wado uuna kabta wadada ayay ugu tegaysaa kadib waxa u imaanaysaa taay oo ku sugaya busteejyada baska kadib furaha ayay siinaysaa taayna waxaa ku dhahayaa maxaa iskuulka ma imaanaysid miya maanta uuna waxaa ku dhahaysaa hadhow camal ay imaanaya ee iska sii bax adiga markay sii bixaysa taay wuxuu arkayaa inay uuna u timid iyadoo kaba la'aan ah si ay u siiso furaha uuna markay guriga kusoo laabatay eegaysa aabaheeda oo bannaanka fadhiyey baaskiilka ay dhulku tuuraysaa kadibna ayadoo ordaysa ay guriga soo gelaysaa waxayna wacaysaa aabaheeda markay meel walka fiiriso waxay arkaysaa aabaheeda ayadan waxay u malaynaysay inuuba isdil rabo maadaama kasta oo madaxa xanuunsan yahay maalintii xit markay iskuulka yimaadaan taay wuxuu weydiinayaa wixii ku dhacay shalay saa'id ayaa kaa walwalsanaya maxaa kugu dhacay uuna waxay ku dhahaysaa aniga hore ayaan kugu sheegay inaa aabaheyga aan daryeeli jiray wuxuuna qabay cudurka depressionka marar badan wuxuu isku dayay inuu isdil asaga taayna waxaa ku dhahaya goormee waxaas ku bilowdeen asaga taayna waxay ku dhahaysaa hooyadeed markay isfureen kadib shaqadiis magaaladu kasoo tagay kadib tuuladan ayaa u soo wareegsanay 5 sano ka hor keligiis makuu yahay waan ka walwalaa samarkii lasoo dhaafay ayuu shaqo helay kadib wuxuu bilaabay inuu xiriir kale u samaysto markaas kadib jaamacad inaa aada in kale ma sii qorshaysan keliya waxaan rabay inaa agtiis aan joogo oo aan caawiyo markuu soo fiicnaada kadib waxaan ka fikiray waxaan samayn doono mustaqbalka kadib waxbarashada ayaan kusoo laabtay iskuulka aniga keliya ayaan go'aansaday inaan wax isbaro oo casharadii dhaaf aan soo muraajacaysto maalmo kadib waqti fasax markuu dhammaado iskuulka waa la furayaa ardayda oo dhan way imaanayaan taay markuu subaxdii imaado iskuulka wuxuu arkayaa uunoo fasalka fadhiso markay xisada dhammaato iskuulka layska soo daayo uuna waxay korka fiirinaysay taa iyo walaalkiisa isla sii socdaan uuna waxay la qabsatay labadooda inay wax isla bartaan fasalkaas cusubna wax niyad ah uma haayin kadib intaa walaalkiisa isbitaal geeyey si baaritaan loogu sameeyo lugtiisa asagana oo niyi jabsana wuxuu ku socday biro walaalkiisa wuxuu ku dhahay nolosheeda oo dhan sidaa ma ahaan doonaa biraan ma ku soconayaa leh taayoo beenkuuma sheegayay aniga saa'id ayuu cabsanooyaa maalin kadib asagoo tareenka saaran waxay sikadiisa isku arkayaan uun ayadan gadaal ayay ka saarnay tareenka markay sinaad asaga inuu isbooja ayuu bilaabaya uuna ka jeesanaya gadaalan fiirinayo mar kale markay tareenka soo degaan way is soo raacayaan uuna waxay ku dhahaysaa daa'im waxay inkirtay marka ay aragtay gadaal xataa miyay soo fiirinay taayna waxaa ku dhahayaa hadda intay u socotaa adiga uuna waxay ku dhahaysaa waxaan maqlay inaa ogolaasho aan ka heshay jaamacadda geli rabtid anigana waxaa is dhahay soo fiiri waxaan dareemayaa inaa sanada aan ku arkin taayna waxaa ku dhahay hadda waxaan raaci rabaa tareen kale maantana mashquul ayaan ahay uuna waxay ku dhahaysaa anigabo tareen kale raaci rabaa meesha aniga hadda kahor hooyadeeda ay keentay waxaana ku taala beer dalxiis aad u shidan taayna waxaa ku dhahay aniga meeshaan u imaanin baashaali boodbood tareenka raacis mataqaanaa qaybtoo ka baxaayo waddooyinkana ma kala taqaanaa uuna waxay ku dhahaysaa ku dhibin waad mashquulsan tahay or iska bax kadib way ka tegaysaa kadib taay wuxuu imaanayaa jaamacadduu rabo inuu galo dhinaca kale uun ayadana meesha tareenka la raacay ay joogtay kadib waxay fariin u qoraysaa aabaheed qofta isjeceliyin waxayna ku dhahaysaa aniga station tareenka ayaan jooga adiga meelaha xaafid kale sooma degneen inaa kuu imaadaa rabay qoftina waxay ku dhahaysaa waa imaan kartaa waxayna siinaysaa adrees gurigeeda kadib uuna imaanaysaa marka wiishka soo degto dhinaca guriga soo aado waxay arkaysaa nin kaloo sii gelaayo qofta aabaheed isjeclaayeen gurigeeda uuna ayadoo indhaha taagaysa waxa soo baxaysa qoftii waxayna ku dhahaysaa soo bax gurigi soo gal banaanka maxaa u taagan tahay uuna waxay ku dhahaysaa adiga aabahiisoo iskuma haysan waan ishukansanayseen yaa waa afleershahaas oo gurigi sii gelaayo qoftii waxay ku dhahaysaa aabbaha qof xiriir leeyahay ma jirto asagna ma way idaneeyaba aniga maxaa sameeyaa marka midkaasaa iskaaga qabsaday uuna ayadoo yaaban ay iskaaga soo tegaysaa dhinac kale taay caafimaadkiisa la baarayay intuusan helin jaamacadda aqbalaadeeda markay baaritaanada soo baxaan dhakhtarada wuxuu sheegaysaa inuu indhaha uu ka xanuunsan yahay waxaanu malaynaya ina stress ah ka qaaday diyaarinta imtixaanaadka marka aqbalaad jaamacadda aad hesho waxaa laga yaabaa inuu kuu ficnaado waxaan goormee kugu bilowdeen taayna waxaa ku dhahayaa jiridan waxay ugu bilowday 3 maaris markay ahayd aabaygii hooyadii waxay u socdeen suuqa si ay walaalkii ugu soo gadaan kaba sportis markay gaariga raaceen waxay galeen shil gaari saddexdooda waalidiintii saas ayay ku dhinteen kaliya waxaa ka bedela walaalkayga laakiin lugtiis ayuu ku waayey taay meesha ayuu ku ooyinaya markuu isbitaalkaas ugu soo baxo wuxuu wacayaa uun markay ka qabato waxay ku dhahaysaa aniga baashaal iyo dheedheel meeshan uma joogi markii ugu horreysa waayo aan geesinimadeed dhan oo isku geeyey oo aabaheyga aan keliisa aan kasoo tagay baashaal inta u imaanin waxaa u malaynaya inaa adiga kula socdo marka inta imaanayay adigana wejiga ii badishad inkiraada igu bilowday taayna waxaa ku dhahay hadda intay joogtaa uuna waxay ku dhahaysaa stationka tareenka ayaan joogaa taayna isagoo ordaya uu imaanaya ayadana waxay taagnay dariishadda waxayna iskafiirsanaysay webiga ahaan labadoodna webiga iskafiirsanayaan cabaar kadib baska tuulada aada ayay soo raacayaan uuna waxay ku dhahaysaa daa'im maxaa kugu dhacay qof kale ahayd haddana waa is soo bedeshay waxaa ila dhaqantay saake qof aan weligeed arkin camal oo kugu cusub maanta keliya xataa ma ahan inaa inkarto waxaa bilowday iskoolka ardayda markay fasaxa kasoo laabteen ayadoo war ku wado ayuu aamusiinaya taay waxaa ku dhahay walwalkii yahay ayaa ugu dambayn sikadiisa igu daayay maanta uuna waxay ku dhahaysaa aniga shalay ilaa saake saa'id ayaan u fikirayay inaad tuulada ah kasoo tahay inta imaado saa'idna waa u daalay saan uu fikirayay maskaxda markaa kugu arkay maanta baska murugta dhan ahay soo idaysay maalmahan waxbarashadeed xoogga ayaan saaray casharadna iska diyaariyo sidii hore si ka wanaagsan ayaan bilaabay bundooyinka imtixaankan way ficnaadeen waxaan isweydiiyay waxa agteeda ka tahay waxaan jeclaan lahaa labadayna isla joogno weligeena taay asagana gacanta ayuu qabsanaya waxaana ku dhahayaa aan samaynay sidaas hadda ayuu bilowday xiriirka labadeena maalintii xigtin waxaa soo dhawaada maalmaha imtixaanka maamulaha iskuulkii taay waxay gurigeeda u dhaweeyeen uun maamulahan waxaa ku dhahayaa uun waqtiga imtixaanka ha ka soo daan si fiican u seexo hana soo hilmaamin kaarka imtixaanku geli lahayd markay xaafadda gasho waxay firiin soo qoraysaa taay waxaan ku
kudhaysaa baris waxay is arki doonaa labadeena maamulahadan gurigiisa wuxuu geenayaa taay awoohiisa ayadiisa walaalkiisa banaanka ay ku sugayeen taay ayadiisa waxay u mahadcelinaysaa maamulaha sidoo uu caawiyo wiilkooda maamulaha wuxuu kudhahaya taay awoohiisa taay wuxuu u baahan yahay saacad gacanta siduu waqti imtixaanka u xisaabsado saacad kale ma haysaa awoowaha wuxuu kudhahaya saacadan kabaran 40 sano haystaa wayna fiican tahay kadib awoowaha wuxuu saacad u xiraya taay subaxdii markii la gaartay wuxuu hore u soo qaadanaya cuntadiisa oo imtixaan kadib cuni lahay uun ayadana busteejada ku sii sugaysay kadib uu imaanaya wuxuuna kudhahaya maanta dhan ma isugaysay ama qabow ku galay leh uuna kudhahaya samay qabow ima haayo aabeygu wuxuu dhihi jiray maalmaha imtixaanaad kuuri la galaayo marwal qabow saayid ayaa jiro ayna maradada wadata ayuu kudhahaya ii dhiib aan tijaabiyey asagana si qaldan ayuu xiranaya uuna kudhahaya saan mahana isku laab markaas qabow ma dareemaysid waxaan isku dayi doonaa in iska soo diibaan gali jaamacad kugu dhow haddii aan aqbalaad aan ka waayo jaamacad siyool u dhow inaan aqbalaad aan ka helo ayaan rajeynaya waxay niyeysanay inay waxay rajeynaysa inay hesho taayna wuxuu kudhahaya waxa isiisay maradan waxay naga caawin doontaa inaa ku guulayso imtixaanka uuna kudhahaysa adiga waxa la isii si aan dhiirgelin aan ugu helo asagana wuxuu soo bixinaya calaamad iskuulka uu magaciisa ku qoran yahay kadib waxay imaanayaan goobta imtixaanku geli lahaayeen kadib markuu imtixaanku soo dhamaado waxay imaanayaan badda siday u dabaaldegaan uuna saayid ayuu faraxsaneed uuna kudhahaysaa taay hadda baddaa aragnay waxaa noo haray keliya webigahaan inaan soo aragno taay waxa kudhahaya laakiin waqti waana daahnay kadib wuxuu soo bixinaya boorsadiisa lacagta ugu jirtay markuu arkin lacagta ay ku yartahay wuxuu sheegaya in hadda ay macquul ahayn mar kale aadeyna uuna ayadana boorsada ay soo bixinaysaa waxayna kudhahaysaa aniga lacagteeda bareega ma isticmaalin maadaama adiga waxa isla baranaynay marka hadda isticmaalayna waxaan ku raacaynaa tareenka taayna wuxuu kudhahaya tareen ma raacayno kadib baska ay soo raacayeen labadooda taay wuxuu kudhahaya webiga wax si fiican looga arki karaa busteejada agteeda markaas soo arrin webiga markaas waxa ku soo laabanayna busteejada meeshan waxa ka helaynaa tareenka ugu dambeeya meeshas ka baxaayo bari waqti hore ayaan gaaraynaa meeshaas waqti fiican ayuu ku wada qaadan doonaa hadda lacagtan yar aan wadano maxay noo goyi doontaa uuna wuxuu kudhahaysaa dhib ma lahan waxaan cunaynaa cuntooyinka fudud ee wadada aabeyga ii sheegay in cuntooyinka siyool ay macdahay kadib waxay imaanayaan meel maqaayad ku taalo ee wadada agteeda uuna wuxuu tilmaamaysaa maqaayadaas markay maqaayad yar ay soo galaan waxaa loo keenayaa cunto uuna wuxuu kudhahaysaa cuntada aad ay u jeclahay aabeyga ii sheegay hooyadeeda inay aad u jecleed cuntada markay uurkeeda lahayd markay cuntada soo dhameeyaan waxay imaanayaan webiga haan uuna wuxuu kudhahaysaa taay aniga waan aamin la ahay maanta inaa webigan quruxda badan inaa joogo weli hore saam u samaynin marka aan u sii dhawaano kadib taay ay qabanaa wuxuu kudhahayaa meeshas qabow waaye kadib maradoo watay ayuu u xirayaa kadib qaybta hoose ay u soo degayaan webiga agtiisa ay imaanayaan uuna wuxuu kudhahaysaa maanta maalin weyn baddaas soo arkay haddana webiga haana imaaday maanta oo kale xasuus weyn ayagu leedahay kadib waxay niyeysanaysaa taay asagana wuxuu fiirinaya siday u faraxsan tahay kadib wuxuu sheegaysaa inay maanta ay ogaatay wax eriyadeeda ay ahayd wax kale ma ahan waa inaa keligeyga aan noolaada anigoo ka fog aabahayga waana macquul haddoo ficnaado aabahayga xaaladiisa waxaan rajeynaya inuu ficnaado si aan sidaan u rabo inaan ugu noolaado oo madax bannaan kadib asaga waxay weydiinaysaa waxay riyadiisa ay tahay taay wuxuu kudhahay adi riyadaada haddee tahay inaad si gooni u noolaato oo madax bannaan aniga riyadeeda waxay tahay inaan nafsadeeda inaan ku kalsoonaado oo aan wax isku taro uuna wuxuu kudhahaysaa waan kugu kalsoonahay taasna waa istaahishaa dhib la'aan adiga hadda keligaa le wax samaysaa laakiin markaa jaamacadda bilowda wax walba way isbedelayaan waana arki doonaa markaas wax iskaa bedelo taayna wuxuu kudhahaya soo bax waa daahnee waa in is soo raacayaan markay kasoo tagaan dhinaca webiga labadooda way soo ordayaan markay cabaar soo ordaan kadib uuna way daalaysaa waxayna iska furaysaa maradii qoorta ku xirnayd waxayna kudhahaysaa ka siireed cuntada aad soo cunay sidaan ayay iga baxday kadib taay gacanta ayuu soo taagaya wuxuuna kudhahayaa waan daahnay soo bax kadib gacmaha is soo qabsanayaan waa in isla soo ordayaan kadib baska ay soo raacayaan uuna wuxuu kudhahaysaa farxaddan waxay la tahay inay markayna ugu dambaysay inay tahay xaalkan uu isbedelaya haddii labadeena aan kala galno laba jaamacadoo kala duwan taay wuxuu kudhahaya muhiim aan masaafada kala fognahay fariinoo isku soo dir karnaa waqti walbo uuna wuxuu kudhahaysaa runtaa waay fariin waqti walba aan ku wada socon karnaa xataa tuulada isgaarsiin fiican way leedahay taay wuxuu kudhahaya labadeen laba dun kala duwan kuma noolin waana wada xiriiri karnaa waxaan samayn doonaa wax kastoo aan awoodo si aan wada joogno wax kastoo dadaal aan samayn doonaa uuna wuxuu kudhahaysaa hoosaan dhamma ay jeceshahay gacanta ay ka qabsanaysaa kadib taay marka u soo dhawaado wuu shuminaya kadib tuulada ay ku soo laabanaya ayagoo gacmaha is haystaan uuna wuxuu kudhahaysaa waxaan rabaa inaa ila joogtid caawa kadib uuna gurigeeda ayay keenaysaa waxayna guriga gudihiisa usoo gelinaysaa si qarsoodi ah si uusan aabaheeda usoo kicin taayna qolka ayugu sii hormaraya uuna ayadana waxyar kadib ayay soo gelaysaa qolka kadibna waxay bilaabaynaa meesha ay jeceyl ku jilaan ayagoo xaalkood iska fiican yahay oo banooniga isu baasayaan hal mar waxaa soo hadlaaya aabaheeda markay codkiisa maqlaan kala cararaa meesha ka dhacaayo aabaheedan albaabka ayuu soo garaacayaa labadoodana way cabsanaayeen kadibna uuna dhinaca albaabka ayuu soo cararaysaa kadibna waxay qabanaysaa irida meesha laga soo furayay taay madax dhuub asagane sariirta hoosteeda ayuu iska cariirinayaa aabaheed waxaa ku dhahaya maxaa beri iskool ma aadaysid miya uuna waxaa ku dhahaysaa haa waa aadi karaa waqti dambe xataa dhib ma lahan hadda waan qabaysanaya kadibna waa seexanaya aabaheedan wuxuu ku laabanaya qolkiisa ayadana markaas naftaa kusoo laabanayso taay asagoo sariirta hoosteeda ku jiro wuxuu ku dhahayaa duq ma baxay mise weli woo jooga ayadana wuxuu sheegaya inuu baxay kadib taay markuu sariirta hoosteeda ka soo baxo oo wada fadhiistaan labadooda ciyaartooda hore ay u sii wadanayaan maalmarkii taay maamulihiisa wuxuu abalaangaraynaya jaamacadda fakaltiga u gal lahay oo ah mechanical engineering markuu codsiga u diro maamulaha wuxuu ku dhahayaa waqti fiican ayaa codsiga dirsatay natiijada aqbalaad waxay soo baxaysaa bisha Febraayo habeenkii ma kala gaaro ayadoo uun ciddeeda u dabaaldegayaan Christmaska taayna guriga uun ayuu si dhuumasho u soo galaya kadib waxay imaanayaan qolka uun kadib qolka ayuu kaweynaya kadib uun ayuu wacaya ayadana waxay soo baxaysaa sariirta gadaasheeda markay is arkaan kadib taay waxa uu sheegaya inuu maamula u abalaangareeyay jaamacadda asagana uu u diray codsiga uun waxa ku dhahaysaa asiga ma ku diray codsiga waa wax fiican aniga haddaan booskaada ku jiri lahay mar hore welweli lahay maalintii xigtay waxa la gaaraya waqtigii loo diri lahay codsiga jaamacadda uun ayadana way cabsanaysay indhahayna gacmaha ku haysatay maamulaha waxa ku dhahay bas hey aan ku diro codsiga jaamacadda uun ayadan welwel ayaa ku furnaa maamulaha waxa ku dhahaysaa sug wax yar kadib waxay niyeysanaysaa halkaas ay nooga egtahay qaybta koowaad ha ilaawina muuqaalka like saartid saaxiib nagu cusub haddii aad tahay subscribe soo dhig channelka gambaleelkana furo si aysan kuu dhaafin qaybaha xiga